waddanka Djibouti maalmihii u dambeeyay waxa ka socday shirka wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana labada dhinac ay kala saxday in qodobada la isku hayo guddi gaar ah loo saaro. Qodobada la isku hayo waxa kamid ah isku socodka siyaasiyiinta labada dhinac, maamulka hawada iyo deeqaha caalamka uu bixiyo. Wasiirka Umuuraha Dibadda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa warbaahinta u akhriyay heshiiska labada dhinac ay gaadheen. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay wada hadal maahine wada hadal midho keenaya. taas waxa ingiriiska lagu yidhaahdo code of conduct. qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaa bay ahayd, confidence building giba. qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen. waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale, gargaarada maaragtay insaaniga, sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda. guddi baan u saarnay. guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Djibouti uu ku shiri doonaa. guddi labaadoo samada air traffic maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay. 15 cisho kadib ayuu Djibouti ku shiri doonaa. guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyey. saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Djibouti. waxaan ku magac siinay technical committees, subcommittees. guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee. 45 cisho kadib ayuu haddana Djibouti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo, qadariyo, u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen. waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dhab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaadhoba. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo wasiirka umuuraha gudaha Soomaaliya waxaanay soo dhaweeyeen heshiiska ay gaadheen labada dhinac. Cabdiraxmaan Erdogan, Nabad TV, Hargeysa.